goor jawiga uu degan yahay jim sheekh muumin baa ii farjaawiyey oo igu yidhi tiijar aadan goor xabad un loo jidboobay jeegaan dagaal un ayna dul joogto jiilkeennuna jaranjarta ka dhacayo jees qabiil iyo siyaasi jaxoraystay inu jabshaha u sido jira hadday qabatana la leeyahay jaalle jimcaha haddaa dagaal ka maqnaatid isjir jaamacadna waayayo laga jabshay iskuuladii adiga u dulqaatayoo jeesadii iyadoo jabshuu socdo waxbaritaan la soo istaagay inta aadan jeexa Yurub qaban tiijar aadanow bal aan kugu taageero kabankayga qaaliga ah iyo farahayga macaana adiguna heesti taageer kol un check inooga sii aniguna ma aanan diidino waxaan ka iri Jim Sheekh Muumin adigoo macallinkii kabanka Soomaaliyeed haddaad garatay in caawa aad check iga siiso kabanka anigana jug aan kugu siiyo heesti taageer allahayo oo ducada ahayd bal waayahay inoo soo qabo kabankaaga qaaliga ahaa Cabdirashiid Dablo oo gurigiisa aan fadhinaa isagana wuxuu leeyahay organ yar oo macaan ayaan ku larayaa marka macallin Jim uu garaacayo kabankiisi fardaynta lahaa ee qaaliga ah ee faranfardaynayay sidoo kale Cusmaan Sheekh Maxamed oo isaguna fadhiya goobta iyo Yaxye Daahir Baaruud oo iyaguna ma arkayse garsoorayaalka ahaa sida Jim Sheekh Muumin iyo Cabdirashiid Dable iyo Aadan Ingiriis ay u qaadayeen ama ay u garaacayeen heesta taageer allahayo ayaa ma arkayse waxay leeyihiin hambalyo roob harka da'aya iyo onkod iyo hilaac badan deehamaha ka buuxsada hukunka aad maqlaysaan waa hobalkii Aadan Ingiriis iyo kabankii Jim Sheekh Muumin dhageysi wanaagsan taageer allahayo